وقضبك ميديا قبصدي وكسب سعرين Somaliland. Somaliland اعتراف مهليسو. That's a fact. عن كهذا وهي حقها وعد وجراه. Somaliland اعتراف هلي ميسو. ما هيسن وهلين. سبب الدورة. وحيابها لو اعترافه ما هيساتو Somaliland. أنيقا إن Somaliland كسو جيدو إنا كسو جيدين. عد الشيء كرتو إقران كرتا ما شفتو إنا أنو الشيء قموي. قف مقرانيسا مركا aan jinsi ahaan iga duwanayn midab ahaan aanan kala nooc ahayn af aanan ku kala gadisnayn diin aanan ku kala gadisnayn dhaqan aanan ku kala gadisnayn baa la kala fujinaya oo la kala goynaya suurtagal ma taas waa qodob waxyaabaha lagu ictiraafo wax lagu qiimeeyo oo dad magaranaysa la badbaadinayo hayb sooc iyo lagu hayo ama diin sooc lagu hayo ama dhaqan sooc lagu hayo ma jiraan Soomaalidu waxay ku kala qaybsantahay lagu kala qaybin karaa oo kaliya waa qabiil iyo qabyaalad that's it wax kale oo lagu kala garan karaa ma jirto qodobka dartiis ku helimayaan qodobka labaad oo aanay ku helin اعتراaf qabiil qaran ma noqdo beesha dhexe baan xataa isku raacsanayn oo intooda badan ka soo horjeedaan xogaa siyaasiyiin la orordaya dadkeena ku maslaxayaan oo ku wareerinayaan oo ay rabaan inay ku qasaan 30 sano ay marayaan 30 sano mana hayaan helina mayaan idinkana iyo idin qasin intiina maskaxda ay kaga khaldeen iyo idin khaldin waxba helimayaan iyadoo qodobka labaad qodobka saddexaad inta badan deegaanka Somaliland la yiraahdo ma ogola inay Soomaalinimada ka baxaan dhinacaas iyo Boorami iyo Awdal lagama ogola Solo dhan lagama ogola Sanaag oo dhan lagama ogola mareer baa marka dawlad noqonaya maxaa marka muuqdo social media haysta waxa haysta wax la lobbying group lobbying oo lacag kaga qaata siyaasiyiinta Somaliland madaxda ka ay Muuse Bixi اعتراaf baan keenayna oo uu kamid yahay nin MP ka Ingiriiska oo ceebti maanta ka dhacday daawateen 600 iyo qadaadiic qof baa xildhibaan ka Ingiriiska wuxuu isla helay 16 qof dadkii markaan tireenay dhowr iyo 10 qof 16 17 wax saasi ah 20 ma gaarin buu isla helay saddex kamid ah taageersan aragtidiisa laba kale iyo isaga inta kale waxay ahaayeen dad oo saaxiib ah oo walaalo ila fariisto adjournment yar baan sameeyay dood baan dhiibay dhageysta waad maqlayseen doodii gudaheedii wixii ka dhacay intii yaraydo isu timi baa istagaashay dawladda mowqifkeediina waad maqlayseen in line with international community and UK government does not recognize Somaliland